socotaan page-ka SMT Broadcast TV waxa ila joogo wiil la jan ah isla markaana diyaar u ah inuu su'aalaha galabta halkan ka bixi doono oo ka faa'iideyso barnaamijka waxayna la socodsiin doonaa anigoo Catoshara ah wiilkana qayb ayuu ka yahay taageerayaal aad u fara badan ayaa galabta halkan ku sugan waa beerta Banaadir goobta ugu shida magaalada Muqdisho soo dhawow magacaada magacaygu waa Cabdulli Maxamed waana adhowahay dhammaan asxaabta inta fiirsanaysa inta maqli doontaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan doonayaa inaan aqoontiida bal aan intaan ka garto wixii la weydiiyo aan ka jawaabo haddii waxaan aqoon waayana bini aadan ahayo qofku waa qaldi karaa ayaa leela yaabaa waa tahay su'aal in lagu weydiiyo diyaar diyaar baan inaan ka jawaabo waa sax qofka bini aadanka wax uu khaldaa waxna uu saxaa wiilkan su'aasha la weydiinaya ayaa waxay tahay maxay u taagan tahay MS plus DOS MS plus DOS haddii marka lagu celiyo waa MS DOS su'aasha waxay u dhacay horta MS tan macnaha program ahaan miyaa mise waa waxa laga soo gaabi standard waaga management S na waa system T waa technology D aad u mahadsan isku daygaaga waan kaga mahad celinaynaa qofka xiga ayaan aadi doonaa balse su'aashan gabdhaha fursad la siinaa haddii ay ka faa'iideysan karaan la joogo soo dhawow magacaada maxamed nuur afale ay in su'aal lagu weydiiyo diyaarowta goormee ayaa la helay Microsoft 1964 guddiga maya ayay leeyihiin aad ugu mahadsan yahay isku daygaada waan kaga mahad celinaynaa su'aasha xigta ayaan aadi doonaa ka faa'iideysi ma jiro su'aasha kale ayaa si toos loo aadaa qofka halkaan oo soo istaaga haddii uu ka jawaabi karo su'aasha kale ayaan aadaynaa weli barnaamijkeeni ayaan bartamaan kaga jirnaa barnaamijka waxaad kala socotaan SMT Broadcast TV barnaamijka waxayna la socodsiinaya anigoo Catoshara sidoo kale inta barnaamijka wuxuu ka dhacayaa beerta Banaadir oo ah goob dalxiis isla markaana shacab aad u fara badan ay u soo damaashaad tagaan waa maalinimo jimco ah oo taariikhda ku astaysan tahay 3 bisha 12aad sanada 2021 qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa su'aasha xigta ayaan aadaynaa iyo dhageystayaasha ama kasoo qaybgalayaasha halkaan imaani waa lagu weydiinaya awooday ma tahay arday doonaya barashada IT-ga iyadoo aad ku baranayso muddo kooban haddii aad tahay arday daneynaya barashada kombiyuutarka laabka iyo ku hadalka luqadaha Ingiriiska Heritage Academic waxa uu ku hayaa koorsooyinka kala ah Active Director Human Service Computer Communication Networking American English koorsooyinkaasi waxa ay soconayaan muddo dhan 3 bilood halkan waa Heritage Academic sida aad u jeedaan systemka cusub ee sanadkan ayaa halkan ku yaala waad u jeedaan goobta aan fadhiyo sida ay u qurxan tahay adiga kaliya ayaa ku raaxaysanaya kombiyuutarkaada Heritage Academic waa academic diyaarinaya arday khibradooda aad loo diyaarinayo sidoo kale iskuulka waxa uu diyaar ku leeyahay practical joogto ah oo loogu talagalay ardayda baranaysa koorsooyinka aan kor ku soo xusno isdiiwaangelinta iskuulka Heritage Academic waxa ay bilaabanaysaa 22 bisha 8aad sanada 2021 waxayna ku eg tahay 5 bisha 9aad sanada 2021 Heritage Academic waxa uu ku yaalaa degmada Hodan gaar ahaan agagaarka Laanta Axmed Gurey wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda soo dhawo magacaada magacaygu waa maxamed Rashid Abubakar Allahda haye barnaamijka SMT Broadcast TV ee su'aalaha ku soo dhawo oo ku dhawahay aad iyo aad haye in su'aal lagu weydiiyo diyaarowta oo taaganahay maxaa loo soo gaabay CPU maxaa loo soo gaabiyay CPU waa Soomaali CPU ma dhal CPU waxaa loo soo gaabiyay System
system unit ما هاي سؤال ugu adkaatay waa gartay dad badanaa kusoo kuukuulay maxaa والله dadkaas ligi waa isku way ma kara meesha su'aasha inkastoo aan dareemay inay fududahay laakiin waa ugu gaadisay dhibno lahaad aada u maasata isku qaybtii ugu dambeysay soo gaaranay ama su'aashii ugu dambeysay barnaamijka waxaa si toos ah ugu socotaan page-ka SMT Broadcast TV su'aasha ugu dambeysay halkaanaan imaanay waa lagu weydiinaa waa su'aashii ugu dambeysay ee barnaamijkeena soo dhow magacaada magacayga Ilyas Cabdulla Cali ku magac dheer Ilyas Cabdulla waa gartay barnaamijka page-ka SMT Broadcast TV iyo iskuulka Gira Tag Academic ay qabanayaan sidee u aragtaa ugu hore wallahi barnaamij inkastoo maanta ugu horeysa laakiin barnaamij qurux badan waa gartay su'aal in lagu weydiiyo diyaaralka si fiican ay gormee ayaa la sameeyay Windows 98 Windows 98 aashaas ayaa laga doonay waa mahadsantahay waan kaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkaaga haddii ay jirto gabar way imaan kartaa gabdho badanaa haddaayuu ku murmaya hanala siiyo marka barnaamijka waa gabogabo aadaan ugu mahad celinaynaa dhammaan shacab ka mid ah asxaabta beerta banaadir maanta kaamiradiisuuna wataa kaamiramaanka ugu shidan waaye ku soo dhawow barnaamijka iskuulka Gira Tag Academic page-ka SMT Broadcast TV ugu horeyn magacaada magacaygu waa Mucaad Abdiasiis Cumar hay su'aal in lagu weydiiyo diyaaraw waxaa intuu soo istaagay su'aal in la weydiiyey waa gartay waxaa sheegay goormee ayaa la sameeyay Windows 98 waxaa la sameeyey 1998 ku celi mar kale 1998 sax iyo qalad guddiga ayaan weydiinay waa sax sida guddiga ay sheegeen bal ka waran dareenka asxaabta kale maxaa leedahay maadaama kaamiraysa ahayd kaamirada kala kacsanaysa su'aashaana heshay dad badanaa ku kuurkuuraayo maxaa leedahay allah idin kala kiciyo idin kala waxaan jecelnahay inaan intaas ku soo gabagabayno barnaamijka waxayna la socodsiinaya anigoo Catooshara waxaad nagala socoteen page-ka SMT Broadcast TV barnaamijka waxaa taabigelinaya iskuulka Gira Tag Academic waxaan u mahad celinaynaa dhammaan asxaabta nagala qayb galay rag iyo dumar dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka u soo dalxiisay halkan oo beerta banaadir ah intaan dib ku kulmi doono toddobaadka kiisa xiga waxaan idinka tagaynaa sidaas nabadgelyo bye bye